Manchester City 2-2 Nottingham Forest. Manchester City ayaa barbaro 2-2 la gashay Nottingham Forest kulan ka dhacay Etihad Stadium taa oo dhaawac weyn ku noqotay rajada horyaalka. Antonio Semenyo ayaa City hoggaanka u dhiibay kadib markii uu si qurux badan u dhaliyay Valley goolkiisii toddobaad tan iyo markii uu ku soo biiray City bishii January. Forest ayaa barbareysay markii Morgan Gibbs-White uu dhaliyay gool cajiib ah oo backheel ah. Rodri ayaa mar kale City u dhiibay hoggaanka isagoo madax ku dhaliyay gool ka yimid koorno, laakiin daqiiqadii 77aad Ellie Anderson ayaa kubad qurux badan ka toogtay meel 25 yardi si uu dhibic muhiim ah uga helo Forest. Chelsea 4-1 Aston Villa. Chelsea FC ayaa guul weyn oo 4-1 ah ku garaacday Aston Villa kulan ka dhacay Villa Park. Xiddiga kulanka waxaa noqday Joao Pedro oo dhaliyay 3 gool hat-trick. 2 daqiiqo markay maraysay Douglas Luiz ayaa Villa hoggaanka u dhiibay kadib kubad uu soo gudbiyay Leon Bailey. 35 daqiiqo markay maraysay Joao Pedro ayaa barbareeyay kadib caawin uu bixiyay Malo Gusto. 45 daqiiqo markii extra time lagu daray 5 daqiiqo Joao Pedro ayaa mar kale dhaliyay kadib baas qurux badan oo ka yimid Enzo Fernandez. 56 markay maraysay Cole Palmer ayaa dhaliyay goolka saddexaad ee Chelsea. 64 markay maraysay Joao Pedro ayaa dhammaystiray hat-trick-kiisa kadib caawin oo ka helay Alexander Garnacho.